meesha ugu weyn laga soo faragelinayaana waxa weeyaan ammaanka wadanka airportka ma gali kartid intaasoo professors baan soo saaray oo afrikaan iyo cadaan iyo cid walba leh mid han weli been u sheegay lama hayo taasi waa waxaan salkaan u sheegaya talabaad waxa weeye farmaajo ii geeya waa wax cad maanta se waxaan qabaa farmaajo iga geeya inay runtu tahay madaxweynuhu wuxuu og yahay in markuu ra'iisul wasaaraha ahaa muddo horteed inta la geeyay Kampala shaqadii halka lagaga xayuubiyay waxa kale oo inuu ognahay Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariiste inta Nairobi la geeyay isaga iyo baarlamaankiiba markii dambena Djibouti la geeyay oo la yiri shaqada ka tag adduunyada kale ku tiri waa doqonnimo iyo ceeb iyo sharaf darro weeyaan marka madaxweynuhu amuuraha inuu ka baaraandaga ayaa wanaagsan isagoo ummadda u danaynaya isaguna sharaftiisa ilaalinaya intii madaxweynahan joogay hadduu yahay nin Soomaaliya waxaa la dhaqaajin lahaa shabaab la dhaqaajin lahaa maalinta jidku sidoo xamar u kala xidhan tahay umay kala xidhnaateen xamar oo xor ah ayaa la heli lahaa hadduu nin Soomaaliya oo daacada oo karti leh oo faham leh u yahay laba xamar waxay dooran lahayd baarlamaankeegii hoose dawlad local governmentkii ay dooran lahayd oo dadku intay isugu soo baxaan iyadoo meesha nabada ayaa qof walba codeyn lahaa waa lagu kala bixi lahaa gada iyo Jubaland iyo Puntland iyo waqooyi galbeed iyo meel walbana sidaas ay noqon lahayd marka ma waxa qofku uu sheeganayo qof ilaaha waxa saanahay Soomaalidu waxay tiraahdaa qof isamaanay waa riis nuugtay tiraahdaa Soomaad garan marka ciidankii Soomaalida intaan la dhisin ayaan shabaab halkii laga dhaqaajin lahaa ayuu maanta xamar inagu xukumaya marka reer gada iska iloow reer gada waxa weeyaan doorashada kuleylkiisa kayga haysata maanta madaxweynaha ayuunba qabyaaladii dib loogu noqonayaa reer gado iyo reer muqdisho waxba u qabo maaha haday wax u qabatahay xamarna waa la xoreyn lahaa gadana iyo koox xor ah ayay dantooda raaci lahaayeen ummadoo dhanna geestooda ka raacin marka reer gada yaan la canaanan dadka waxa weeye ninka villa Soomaaliya fadhiya hadduu Soomaalinimo ka shaqeynayo maanta waxa jira ma jireen professor waxaan rabaa madaxweyne Farmaajo 4 sano dalka jooga waxa sheegtay in farsamo xumooyin badan oo madaxweynaha siyaasadda ka qaldamay inay wali qaldan yihiin oo dhibaatadoodii hadda ay taagan tahay laakiin dhinaca kale wax uun maanta madaxweynaha aad ku amaani karto ma jiraan waxa weeye macallin haddaad su'aal weydiiso ka soo qadar ardaygaygi ma tihid cawayso Soomaad garan macallinka marka loo keenay imtixaankii ardayga ama ardayadaba hadduu yiraahdo ardayada ama ardayga halkeen ka amaana oo ardayga iyo ardayada runta u sheegi waayo runta waxa loo sheegayaana ma aha dhaliil qofkan ma aha ay qofkan si loo saxo khaladkaasi si ardayadu waxay u barato oo u faa'iisto oo qayrkeed uga sarreysa loogu sheegayaa waxaan dhibaatooyinkan sheegaya waxa weeye in la saxo si ummaddu waxay u noqoto isaguna ummadda ma laha cid kalena ma laha dadka daadsan ee balanbalsan ayaa leh marka waxaan oran lahaa hadaan wax weyn u sheegi lahaa madaxweynaha xamar baa la xoreyn lahaa laba cashuurood baa qof walba laga qaadaa weynu ognahay jidadkii baa xidhan hadduu xoreeyo shacabka loo tumi lahaa marka run haynu isku sheegno hadduu ardaygayga ahaan lahaa oo gradeyadan bixiyaa imtixaanka markan saxo gradeyadan bixiya hay tahay A ilaa F haday tahay maanta waxaan siin lahaa madaxweynaha F baan siin lahaa maaha madaxweynaha shakhsiyan maan u dhaliilaya wixii uu qaban kari waayay waa inaan runta ka sheegnaa waaye hadduu wax wanaagsan sameeyay mesela haddaan tilmaam ku siiyo qolooyinkii maxaakiimtu markay joogeen waan joogay waan la talin jiray Sheekh Shariif waan la talin jiray waxaan iyo waxaan sameeyaa waxaasina waad ku wanaagsantiin waxaana waad wada khaldeen markii ugu dambeeyay waxaan ku idhi kibirkiini ayaa keenay inay axmaara timaado xamar oo dadka disho ka jooga baan ku idhi baydhabo ha tagina ka jooga ha tagina Kismaayo iyo meel kale ha tagina banaadir balcad ilaa afkooyo ilaa marka inta hal la sifeeyo marka halka la sifeeyo Soomaalidii kale oo dhan oo socota oo haliilas ayaa xamar iman doonta haddaad laakiin tiraahdan ciidanka Itoobiya ka kaxeynana ciidan uma haysana ciidanka inaga daafaca inta kun ay ku dhimatay halkaas iyaga ka mas'uula wanaagoogina waan sheegay xumaantoodina waan sheegay xasan sheekh oo ka dambeeyay sidaas ilaa kana runtaan u sheegaya haday markaa runtu haday qaraaraato ilaahay iyo isaga u taala waxyaabaha dawladda dadka amaana ay sheegaan oo ay qabatay waxa kamid ah dawladihii ka horeeyay matalantii ka horeysay ayadoo dhowr bilood
dhowr iyo 10 bilood mushaar lagu leeyahay ay timid tan weligeed laguma yeelan dowladihii hore waxaa lagu dhaliili jiray faragelin iska socoto oo shisheeyaha ah oo aad loogu dabacsan yahay loo nugul yahay inay midan xoogaa is adkaysay is aruurisay is xakamaysay qaladaad baa dhacaan waxyaabo kale oo aad u tiro badan marka waxaasoo dhan ma muuqdaan miya professor waxa weeye ma waxa la leeyahay mise waxay xaqiiqdu tahay cidii doonaysa waan isamaani karaa waxaan ka caynkaasaan hay waxaasaan qabtay adiga iyo aniga heednay tala waxaan doonaynaa inaan sheegano 30 sanadood ayaan jaamacadaha macallin ka ahaa kumaankum arday baan wax baray intaasoo professors baan soo saaray oo afrikaan iyo cadaan iyo cid walba leh mid han weli been u sheegay lama hayo taasi waa koow waxaan salkaan u sheegaya talabaad waxa weeye faragelistu maanta way jirtaa shalayna way jirtay xasan sheekh way jirtay shariif way jirtay kuwaas ayuu kala siman yahay waxa weeyaan ciidamadeena ya amisom baa wadanka xukunta ciidamahaynu leenahay ma xukuma run marka la sheego soomaad garan xasan sheekhna sidaa ahayd shariifkana sidaas ahayd meesha ugu weyn laga soo faragelinayaana waxa weeyaan ammaanka wadanka airportka ma gali kartid hadaanad warqad sidan hareeraheega ma iman kartid jidadka ma mari kartid soomaad garan marka waxa weeyaan faragelintii amisom baa koow ka ah faragelintii Ethiopia ciidamadeedu wali joogan baa koow ka ah Mareykanka iyo reer galbeedka oo dhan oo oranaya waxa lama sameyn karo shalayna way oranayeen maantana ma oran karayaan hawayso carbal Soomaaliya ay sheegto waxa madax banaani tilmaamaya ee dadka Soomaaliyeed suuqa degan u danaynaya ya ee madaxweynahaas uu qabtay iguna ka gaduwan yahay kuwii kale hadii la soo helo qandhuuftaydan dib u laqaya madaxweynaha wuxuu u muuqdaa inuu rabi lahaa in mar kale la soo doorto oo musharaxiinta ka mid noqdo aragtidaada marka aad fiirisid 4 sano ka hor maalintii la doortay oo aan ogeyn madaxweyne 30 sano ee la soo dhaafay sida asaga loogu soo baxay ee loo soo dhaweeyay aan loo soo dhaweynin asaga ka hor marka rabitaankii maalintaas 4 sano iyo hadda marka aad isu fiirisid ma kula muuqataa in uu jiro oo uu soo bixi karo mar kale horta waxa bari dhici doona ilaahay un baa qof bini aadam waad ka faaloon kartaa laakiin ma ogaan kartid xasan sheekh waan joogay markii la doortay waa loo dabaaldegay farmaajo waa loo dabaaldegay maxaakiimtu markay hay qabsadeen Soomaali meel hay joogta adduunka ma aha wadanka gudihiisa ayaa dib loo soo ruqaansaday markaas la tilmaam hadaan ku siiyo laba nin baa xukumayay Puntland iyo Somaliland Allahu naxariista Adam Muuse wuu dhintay oo Puntland xukumayay Daahir Riyaalana wuu nool yahay oo waaga madaxweyne ka ahaa Somaliland labaduba iyadoon cid u tagin oo la hanjabin markay maqleen islaamnimo iyo Soomaalinimo ayaa lagu xukumayaa xamar ayay kaga dhawaaqeen shariicadan ku xukumanaa way baqdeen dadkii baa ka hoos kacay Soomaad garan marka wax ka duwan oo farmaajo lagu soo dhaweeyay ma ayan jirto Soomaad garan laakiinse in loo riyaaqay in xasan laga takhaluso oo durmaan la tunto la oran jiray farmaajo geeya waa wax cad maanta se waxaan qabaa farmaajo iga geeya inay runtu tahay xaq buu u leeyahay inuu tartamo laakiin jid xalaal ah waa inuu ku soo baxo hadduu xalaal ku soo baxo aniga oo farsamo xumidiisa ka horjeeda ayaa salaami doona inuu yahay ninkii ku soo baxay meesha laakiinse intan wax walba kharbudo intan gada soo gooyo intan Somaliland soo boobo intan isku diro dadka reer Banaadir haddana durmaan hala ii tumo way dhamaatay sheekada musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo 25 sano u dambeysay ku soo jira siyaasadda Soomaaliya wuxuu shaqada dawladda ka soo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliye madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqal taagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wada hadallada Somaliland dhameystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halku dhig u ah teeda maya taada maya teena haa